darbajiifka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ah gabi ahaanba qaar ku nool xaalad adag iyadoo waqti xaadirkan ay dhacso dhaxmadar haddaba xillimaan telefishinka caalamiga GTN uu kurgalay xaaladda nololeed ay ku nool yihiin dadka darbajiifta ayaa waxa uu la kulmay dad noloshooda ay ka muuqato diifadani haddaba dawladda cusub iyo sidoo kale dadka samafalayaasha ah ayaa waxay u direen baaq ay kaga codsanayaan caawinaad degdeg ah waxaana xukuumaddii hore hogaaminayay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay sheegtay inay dhistay goobo lagu xanaaneeyo dadka darbajiifka balse aan waqti xaadirkan shaqayn dhalinyarada darbajiifta anagoo ka hadlayna waxaan doonaynaa in loo dhiso guryo iyo iskuulo naloo furo dhaxanta imika way ka sii bishii ugu darnid baan ku jirnaa korar iyo waxaan u baahanahay bustayaal iminkaan ku noolnahay horta wan iska nololno ilaahay horta u nololeys annagoo 500 oo ciyaalka darbajiifta waxaan doonaynaa in loo dhiso iskuulo iyo bandaro oo nala siiyo waxbarasho dawladda cusub ayaynu ka doonaynaa waxbarasho wax nala dhigo oo ama ciidanka nala qoro dawladda cusub waxaan ka codsanaynaa inay siiso daryeel waxaan macabo dawladda cusub madaxweynaha cusub waxa gaarsiinaya inuu na soo caawiyo oo guryaamana dejiyo oo waxa noo qabto xaqa ayuu ku leeyahay dawladda inay qabto xaalad xun baan ku noolnahay هذا وحنا رقبنا وحنا رقبت هنا وحنا رقبت وحنا لبره هي نديرنا دولة عسوا عن كل سنة هنا حنانية وحنا رقبت وقرب كذا اللي تاجنا نحن توي دقان نقدر كتبا وحنا قدرنا نحنتا وحنا قدرنا أسكرت الحين إريريس يا لحب الودر تي ونصحوي دولة عسوا هنا وحنا رقبته ayaa doonayna guriyo nolosho waxaan ku jiray teeda sanacbi bustayaal iyo koorar iyo waxaan ku yiri iyo kalmad degdeg ah hadaan nahay darbajiifta waxa weeyaan anagu halkan aanu joognaa dawladdu muxuu ahaay tanama kala habaysa anaga iyo xabaglu isku xirun baanu nahay guriyo muxuu ahaay tan looma dhisa xashiishna lagama xaadho muxuu ahaay xabaglihi anagu isku mid baana maalintiina waan wada joognaa habeenkiina waanu istilaa wax mashruuc iyo waxa ayadoo mar qura noo tiim ma jirto wax yiri ummadan hal kala habeeyo hal kala xareeyo kuwana hal laga raro ma jirto waxaanu doonaynaa hay'adda samafalka ama dawladda cusub inay ummadan kala hagaajiso oo dadka muxuu ahaay tan yarta heelka ku jirta indha hoose ku eegto dadkan xabaglaana naga habayso oo xashiishka naga xaadho oo iyadu dalkeeda yada leh naga bararto oo meel basar leh ama nadiijo ama xaq ayaga intayna siiso ayna tiraahdo fasaxbeed dhaxantu waanu rafaadsanay buulasha inta la leed baanu ku jirnaa dadan yara baanu baraka aanu leenay caamaanu leenay islaama jiifaanu leenay bareelays baanu leenay waxa weeye dawladdu nama oga kaad nama siiso raashin nama siiso budget baanu dawladda ku leenahay waxa weeye dad qaran ah baanu nahay waxna eegaana ma jiro waxna daryeelaa ma jiro dawladda waxaanu leenahay indha hoose daalaha ku eegto xaq iyo xuquuq baanu ku leenahay indha hoose ku eegto xabaglihi iyo anaguna isku xiraabanna dabaatada way iyagoo sariyanay tooriyaan noola soo galaan anagoo tukanayna tooriyaan noola soo galaan iyagoo ordayay isla kaaya soo galaan way isu kaaya jiidaan dhagaxa shiidka kuwa ciyaal iskuulka iyaga shiid sugo kaaya qabso qofka dakhran ee halka jooga lagama sheekayn karo qaar baa guryaha aqalada intay galeen oo askartii ugu gashay iyagoo tooriyo isku haya lagu soo saaray waxaanu leenahay meel dhibaataysan deganahay dawladdu waxa noo qabto ilaahay qadarkiisa inamadana si waxaan u galaan hagaajiyaan dhibaatada inagu ay waa shiid waa dhagax waa tuuriyo waa maydkooda mar walba ku soo baxno maydkooda aan mar walba ku soo baxno waxa weeye dawladdu indhaha kala qaado iyaguna soo jireen annaga way dilayaan haddaanu qof yar dhigano way naga dilayaan haddaanu alaab dhiganayna way naga dilayaan haddaanu guri dhiganayna way naga dilayaan haddaanu wax dhiganayna way naga dilayaan dhowr iyo 10 sano ayaanu xaafadan deganayn xabaglayaal baa naftii noo keenay caruuraha yar yar arkaysan hareerahayga taagan caagada xabagta marka la tuuro intay soo qaataan bay nuugayaan xabaglayaal baana waalay anagoo guriga saa u dhex fadhina ayagoo midiyeysito isku eryanaya noola soo galaan ina yar baan maalin dhawaad ka tagay anigoo suuqa ku maqan waxaan u imi inaba iyada cararaysa timi waxay igu tiri caruurtaadii niman baa midi u la galay wallaahi billaahi tallaahi waxaan la galay 3 nin oo midiya dhaadheer sito waxaan ku dhinantii isku dulaysay inantii ay nacaag noqotay ilmihii yaraan waxaan ku ka wasqaaqlay ki habeen baanu sidaan u qarqarayno dhaxanta awgeed waagu noo bariya dawladda waxaanu ka codsanaynaa inay bustayaal iyo
wax la huwado marka ugu horeysa horta xabaglayaashan ay naga basrisa xabaglayaashan ay iskuul u furto waa caruuri yar wadanka u soo kacaya ee muwaadiniinta aha qaar 2 jira ku jira qaar 3 jira qaar waxaan ku yiri 7 jira waxaan leenahay dawladda sharafta leh naga soo gaadho Muuse Biix Cabdi وعبد الرحمن عيسى تلفزيون عالمي GTN مقالة برعو